boqortooyada Urdun ama Jordan waa mid su'aalo badan dul hooganayaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Iiraan iyo dawladda Yuhuudda. haddaba waa maxay sooyaalka qoyskan boqortooyo ee muddada dheer xukumaya Urdun? Urdun oo si rasmi ah loo dhaho boqortooyada Haashimiga ee Urdun waa dal ku yaala bariga dhexe, wuxuuna xuduud la leeyahay Syria, Ciraaq, Sacuudi Carabiya, dhulka Yuhuudda xoogga ku haysato iyo daanta galbeed. caasimadiisu waa Ammaan, taasoo ah magaalada ugu weyn dalka, sidoo kalena waa xarunta siyaasadda, dhaqaalaha iyo waxbarashada ee dalka. waa dal buuraley ah, dhulkiisuna oomana yahay, mana lahan kheyraad dabiici ah oo badan sida saliidda. laakiin dalkan wuxuu horumar ka sameeyay waxbarashada, adeegyada caafimaad iyo dalxiiska, gaar ahaan goobaha taariikhiga sida magaalada qadiimka ee Petra iyo badda dhimatay. taariikhda casriga marka la eego dalkan, taariikhdiisu waa mid ku kooban kana soo bilaabatay qoyska boqortooyo ee majaraha u haya, isla markaana sheegta inay ku aruraan reer Haashim ama qabiilka nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay. sooyaalkiisu dalkan waa mid salka ku haya la rafiiqidda siyaasadaha galbeedka. qoyska dalkan ka taliyana asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa magaalada Makka, gaar ahaan Xuseen bin Cali oo ahaa shariifka Makka iyo amiirka dhulka Xijaaz. wuxuu ahaa shariifka Makka oo ahaa xil diineed iyo siyaasadeed aad u weyn oo loo magacaabi jiray qoysaska ugu caansan Makka, gaar ahaan kuwa sheegta inay ka soo jeedaan qabiilka nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay. sanadkii 1908 dawladdii Cusmaaniyiinta ayaa u magacawday Xuseen bin Cali xilka shariifka Makka iyo amiirka Xijaaz. muddo sanado ah markii uu la shaqeeyay Cusmaaniyiintana wuxuu istusay in Cusmaaniyiintu yihiin qolo Turki ah oo dadka Carabta ah inay Turkiyeyso doonaysa, wuxuuna bilaabay kacdoon ka dhan ah Cusmaaniyiinta. wuxuu si hoose u la heshiiyey Ingiriiska, waxaana dhex maray warqado sir ah oo loo yaqaano Hussein McMahon Correspondence, wuxuuna si gaar ah ula xirtay Henry McMahon, safiirkii Ingiriiska u fadhiyay Masar. warqadahan waxay saldhig u noqdeen kacdoonkii Carabta ee ka dhanka ah Cusmaaniyiinta, waxayna saameyn weyn ku yeesheen aayaha dhulka Carabta. Ingiriisku wuxuu doonayay in Carabtu bilaabaan dagaal ka dhan ah dawladdii Cusmaaniyiinta oo xulafo la ahayd Jarmalka intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka. sidaas daraaddeed McMahon wuxuu Xuseen bin Cali u qoray warqado oo uu ugu ballan qaaday haddii ay Carabtu sameeyaan kacdoon ka dhan ah Cusmaaniyiinta inuu Ingiriisku dhisi doono dawlad Carabeed oo madax bannaan, Xuseenna uu boqor ka yahay. haddaba kadib ballanqaadkaas, Xuseen bin Cali iyo labadiisa wiil ee Cabdallah iyo Faysal waxay bilaabeen inay abaabulaan kacdoon military oo lagu doonayay in lagu dumiyo dawladda Cusmaaniga. bishii Juun 1916 Xuseen bin Cali wuxuu ku dhawaaqay kacdoonkii Carabta ee lagaga soo horjeeday Cusmaaniyiinta, waxayna asiga iyo wiilashiisa Ingiriiska ka heleen taageero military iyo lacag, waxaana si dhow ula shaqayn jiray T.E. Lawrence oo ka tirsanaa sirdoonkii Ingiriiska. Lawrence wuxuu ahaa isku xiraha Ingiriiska iyo Xuseen bin Cali, wuxuuna ahaa qof aad u fahmay dhaqanka Carabta maadaama uu bartay luqadda Carabiga, wuxuuna sidoo kale xiran jiray dharka Carabta. wuxuu la baxay magaca Lawrence of Arabia. ciidanka Carabta weeraro badan ay ku qaadeen Cusmaaniyiinta ayuuna la socday. dawladdii Cusmaaniga oo lugaha kula jirtay dagaalkii koowaad ee dunida ma aysan u babacdhigi karin kacdoonka Carabta oo taageero dibadeed helayay. sanadkii 1918 ayayna Cusmaaniyiintu si buuxda uga baxeen gobolka. Xuseen bin Cali kama uusan helin Ingiriiska ballanqaadkii, waxaana dhulka Carabta qaybsadeen Ingiriiska iyo Faransiiska sida ku xusnaa heshiiska Sykes-Picot oo ah heshiis sir ah oo Ingiriiska iyo Faransiiska si gaar ah u galeen. Carabtuna waxba kama ogeen heshiiskan ilaa 1917 markaasoo Ruushka Bolsheviga uu soo saaray siraha reer galbeedka. heshiiska lagu qiyaanay Carabta ee Sykes-Picot waxaa sidoo kale xigay ballanqaadkii Balfour ee 1917 oo ah warqadii uu Ingiriisku ku taageeray in Falastiin laga dhigo waddan Yuhuuddu leedahay. intaa kadib Xuseen bin Cali wuxuu isku magacaabay inuu yahay boqorka Carabta gaar ahaan Xijaaz. 1916 ilaa 1924 ayuuna talinayay asoo Ingiriiska la shaqeynaya, awooddiisuna aad ayay u koobneed, waxaana ugu dambeyn meesha ka saaray Cabdulcasiis Al Sacuud oo markii dambe aasaasay dalka maanta Sacuudi Carabiya loogu yeero. Xuseen bin Cali intii uu Xijaaz ka ahaa amiir Ingiriiska la shaqeeya, labada wiil ee uu dhalay ee Faysal iyo Cabdallah waxaa lagu kala abaalmariyay inay xukumaan Ciraaq, Suuriya iyo Urdun. Faysal wuxuu boqor ka noqday Suuriya iyo Ciraaq, muddo kooban kadibna Suuriya Faransiiska ayaa ka eriyay. walaalkiisa Cabdallahna wuxuu sanadkii 1921 noqday boqorka Urdun oo loo yaqaanay Transjordan.
ingiriiska ayaana magacaabay oo uu hoos tegay 1946 Urdun waxay si rasmi ah uga madax banaanaatay ingiriiska waxayna noqotay boqortooyada Haashimiga ee Urdun. Cabdallah wuxuu noqday boqorkii ugu horeeyay ee Urdun wuxuuna si dhow ula shaqeyn jiray reer galbeedka gaar ahaan ingiriiska. Cabdallah waxaa la dilay 1951 isagoo oo booqanaya masjidka Al-Aqsa ee Qudus. waxaana dilkiisa lagu sababeeyaa isla markaana la xiriiriyaa taageerada uu hayay reer galbeedka iyo xiriirka uu la lahaa Israa'iil. wiilkiisa Dalaal ayaa xilka la wareegay balse sanad kadib ayaa xilka laga qaaday sababo la xiriira xanuun dhimirka ah oo la soo gudboonaaday. kadibna waxaa xilka la wareegay wiilkiisa Xuseen oo markaas jiray 16 sano wuxuuna xukumayay Urdun muddo 47 sano ah. waxyaabaha lagu xasuustana waxaa ka mid ah xiriirka dhow ee uu la lahaa reer galbeedka gaar ahaan ingiriiska iyo Mareykanka. dagaalkii 6 maalmood ee Carabta iyo Israa'iil oo ay Urdun ku lumisay daanta galbeed oo ay ka hor xukumaysay. sidoo kale Urdun waxay qayb ka ahayd dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ee 1973. dagaaladaas kadib boqor Xuseen wuxuu u leexday dhanka diblomaasiyadda wuxuuna aalaaba isku dayi jiray inuu noqdo mid dhexdhexaad ka ah siyaasadaha gobolka. 1970 wuxuu dalka ka saaray ururadii hubeysnaa ee Falastiin kadib markii ay awood ku yeesheen gudaha Urdun. wuxuu qayb ka ahaa oo uu dhinac ka abaabulayay shirkii Madrid ee 1991 ee Yahuudda iyo Carabta lagu heshiisiinayay iyo heshiiskii kale ee Oslo ee 1993 ee Falastiin iyo Israa'iil la isugu soo dhaweynayay. waxaa kaloo xusid mudan inuu gacan ka geystay heshiiskii nabadeed ee 1994 ee Urdun iyo Israa'iil kala saxiixdeen. wuxuu guursaday 4 xaas oo 2 kamid ah ay galbeedka ka soo jeedaan, mid Mareykanka ka soo jeeda iyo mid Ingiriiska u dhalatay. wuxuuna geeriyooday 1999 waxaana kadib xukunka boqortooyada Urdun la wareegay wiilkiisa Cabdallah oo loo yaqaan boqor Cabdallah labaad waana boqorka haatan ee dalka Urdun. hooyadii waxay ka soo jeedaa Ingiriiska magaceeda rasmiga ahna waa Antoinette Avril Gardiner. aabaheed wuxuu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada Ingiriiska ee ka howlgeli jiray gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan Urdun. 1961 ayay isguursadeen boqor Xuseen bin Dalaal waxaana la sheegaa inay muslimtay isla markaana qaadatay magaca Muna. boqor Cabdallah labaad ee haatan Urdun xukumaya wuxuu waxbarashada hoose ku qaatay Urdun kadibna UK iyo Mareykanka isagoona ka baxay jaamacadda Georgetown ee Mareykanka iyo Pembroke College iyo Oxford oo Ingiriiska. wuxuuna qaatay dhowr koorso oo ciidan iyo sirdoon ah ka hor inta uusan boqorka noqon wuxuu ahaa taliyaha ciidamada gaarka ah ee Urdun. xaaskiisa waxaa lagu magacaabaa Rania Al Abdallah waxayna asal ahaan ka soo jeedaa Falastiin. waxayna u dhashay ilaa 4 caruur ah, 2 wiil iyo 2 gabdhood. dhaxal sugaha dalkan waa wiilkooda curadka ah ee Al Xuseen bin Cabdallah. gabadhiisa lagu magacaabo Imaanna waxaa dhawaan guursaday nin asal ahaan Giriiga ka soo jeeda, halka gabadhiisa kale lagu magacaabo Salmana ay noqotay gabadhii ugu horeysay ee diyaarad ciidan duuliye ka noqota ee dalka Urdun. boqor Cabdallah labaad ee Urdun waa mid si adag u ilaaliya awoodda boqortooyada wuxuuna si weyn u xadidaa dhaqdhaqaaqa baarlamaanka iyo xisbiyada mucaaradka. nidaamka xukun ee Urdun waa boqortooyo dastuuri ah, sidaas oo ay tahayna boqorka wuxuu leeyahay awood ballaaran sida magacaabidda ra'iisul wasaaraha, kala dirista baarlamaanka iyo talada ugu dambeysa ee ciidamada. baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 2 aqal, aqalka shacabka iyo aqalka sare. xukuumaddana waxaa si dadban mas'uul uga ah boqorka. Urdun waxay si joogto ah reer galbeedka uga heshaa gargaar dhaqaale iyo military waxayna xulafo dhow la tahay Ingiriiska iyo Mareykanka. boqor Cabdallah labaad ee Urdun waa shakhsi si weyn u ilaaliya heshiiskii 1994 ay wada galeen Israa'iil iyo dalkiisa wuxuuna ku dadaalaa wanaajinta xiriirka Yahuudda. sidaas oo ay tahayna wuxuu isku tilmaamaa in asiga iyo Urdun ay mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay ilaalinta masjidka Al-Aqsa iyo xuquuqda Falastiiniyiinta. wuxuu ku doodaa waxa ka muhiimsan dimuqraadiyadda Carabta inay tahay ilaalinta xasiloonida iyo amniga. wuxuuna ka mid yahay hogaamiyaasha ka badbaaday kacdoonkii guga Carbeed. wuxuu hormuud ka yahay ololaha loo yaqaan Islamic Moderation oo ah islaam dhexdhexaad ah oo diidan kooxaha xag jirka ah ama diimeed.